بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم may maqashaan kusoo dhawaada qaraabo Soomaali intii maqlaysa ha kusoo dhawaato Facebookan horta meeshan waxaan ka salaamayaa Soomaali wax laala iyo wax diyar wixii maqlaaya iyo wixii matalan hadalkayga dhageysta magacayga waxa la yiraahdaa Canab Xasan Maxamed baa la yiraahdaa weligay live ma soo gelin Facebook xataa aan ka hadlayo aan ka soo duubayo malihi inaan yaraan dhalay baa leh waxay u kalifay inaan live ka soo fadhiisto oo aan ka hadlo live ka hadallo dad wax magarata ah ay ka yiraahdeen Facebooka yaa igu kalifay horta waxa laala wixii maqlaya waan salaamayaa aad iyo aad baan u salaamayaa Soomaaliya dhan baan salaamayaa ina laala intii ka daawata yaan salaamayaa intii dhageysanaysan waxa rabo inay shay gareeyaan oo ay gudbiyaan oo ay maxay tahay marka waxaan idin soo gudbinayaa runtii anigu waxaan ahay maamo Soomaaliyeed oo jecel Soomaalinimada oo jecel wada jirka oo jecel maxay haytay qarannimada way sababtoo ah anigu qarankaygii Soomaaliyeed baan ku soo caqlistay aan wax ka soo gaaray markuu dumayay sidii ku dumayna waan ogaa marka waxaan leeyahay aad baan u jeclahay anigu qaranka Soomaaliyeed dhalasho anigu meeshaan ku dhashay oo dadkan meesha aan ka soo jeedo waxaan gabar reer Burcaan ku dhashay ilmahaygan waxay ka soo jeedaan Soomaaliya dhan baan u dhaxeeyaa Soomaali anigu saddexda qabiil ee Soomaaliya dumisay mid waan ka dhashay midna way dhaleen midna waan u dhaxay marka sorry anigu waa aad iyo aad baan u jeclahay qarannimada Soomaaliyeed waa qaranka Soomaaliyeed mid wiilkayga u dana oo wiilka walaalkay u dana oo kii abtiga dhalay u dana ma jecli aniga Soomaali in la kala qoloqoleeyo waxaan jeclahay maxay ahayd si Soomaali ku midoobi lahayd xataa hadaan helay anigu Soomaali iska day Afrika oo dhan baan mid ka dhigi lahaa way sababtoo ah anigu hadda waxaan joogaa wadanka dabadiisaan joogaa wadana waqti aan soo fogeyna waxaan ka imid Soomaaliya waxaan jeclahay oo aad u jeclay markaan arko Afrikaanimada lagu cunsuriyeeyo markaan arko muslimnimada lagu cunsuriyeeyo markaan arko Soomaalinimada lagu cunsuriyeeyo waxaan aad u jeclay marka hore Afrika inay midowdo siiba hadda Afrika la waayo Soomaali inay midowdo marka ma jecli wax Soomaali ah oo la kala guro ama la kala saaro anigu ma jecli marka dadka anigu waxay daaray oo hadda Facebook aan weliga xataa anigu aan samaysan oo weliga live-kiisa aan soo gelin waxa igu soo kalifay inaan soo fadhiisto waa dadkaan oo kale inta istaan ku kala orda xasan hiifa cadow ayaga gacantiisu gashay fool xumana ayaga ka raacday maantay maxay heleen ii sheega nothing nimankaas la maxay hesheen waxba hal dhibic iyo laba dhibic waxaan ahayn ma aydan helin marka waxa waaye marka Soomaali taasina waa ku jirta magacina waa leeyni ka dilay xamarna hadda aaw abgaala laga ما يفدا kala han noqoto dad kala han noqoto waxa waaye adinkaas طبعا هو فانتا anaga marka meesha xalku inooga jiro بس هذا الحب gacanta igaga dhacday
soomaali marka tanna waa ku jirtaagtay dhaafi intaas iga dhaafi hawiyaha ka quumaa laakiin adiga ina adeerka abgaal iyo hawiyaha kaleba xasan ina adeerkiinu ahaa xasan asaa waddanka idiin nooliyey xasan asaa dhisay asaa qurxiyey asaa wanaajiyey maxaa hesheen adinka daahir Det var nya hamburgare med läckert luftigt. dee hooyo maxaad iga dhigaysaa anaa geysanaya iska dhaaf anaa farak dhowranaya adigu waxay geynay shalay tiri cadowgayga waa weliba 21 marka soomaali tanna waa ku jirtaa bal idan tanna dhagaysta waa ku jirtaa بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته دمان أمد الصوماليات بان سلامية مقعي وروضة إبراهيم عبد القري وحان أمد الصوماليات لو داغيا فرحادة إيا دمان شاد كالوسو دوينيا مدحوينها أمد الصوماليات لو دورتي مداني محمد عبد الله محمد فرماجو إلهي با أمد الصوماليات دوري هدونا إلهي ودورين أمد الصوماليات مينا dareenka intaa la eg mayna siiseen iyo soo dhaweynta intaa la eg ilaa ay hadda socota muddo 6 bilood ah oo uu ra'iisul wasaare ahaa Soomaalidu kuma ayna wada tijaabinin farmaajo laakiin waa khayr ilaahay inala doonay baan rajaynaynaa ilaahay waxaan ka baryaynaa khayrka uu nala doonay iyo madaxweynaha uu noo dooray inuu nooga dhigo kii cadaalad ummadda u fala kii ilaahay kaga cabsada xilka oo loo doortay kii ummadda Soomaaliyeed isu keena kii dhibaatada ummadda Soomaaliyeed ka meedhay in ilaahay ka dhigan ka rajaynaynaa ummadda Soomaaliyeed ودرين شعبي طبكا ورصدا هداني دردور سينا حالي باديك تاني هردادا وحيلة دولانا marka inantan yarna bal dhagaysta أقوى تنقبضها baana barteen horta taas maskaxiyan waa noo disheen tanna waa ku jirtaa labaad oo aadna badeen oo ama arrinta resultaadkii aad diyaariseen ay noqotay waxa waaye rabitaankiinni markaad muujiseen ayaad waxaad hadiyado nooga dhigteen ilmuhu waxay ku ciyaaraan alaabaha ciyaalayska ah oo farxadda ilmaha u dhaliya annaga alaaba ciyaalays waxaa nooga dhigteen alaabaha ciyaalka hadiyadda waxaa nooga dhigteen baaruuda bumbooyinka qaraxda waxaa nooga dhigteen isku soo wada duub maanta Soomaali kala daasana hortay dan u tahay ma qofkay dan u tahay waa qofkee haddii ilmaheeni meel ku wada tahay meel doon baddi wada liqday kii hargeysa ka tagay iyo kii ka tagay boosaaso iyo kii ka tagay maxay ahaatay xamar iyo kii ka tagay maxay ahaatay jubooyinka kismaayo iyo kii ka tagay maxay ahaatay ii sheegeen gobolka kale isna maxay ahaatay isnaguna baydhabo haddii Soomaali ilmadeedii meel ku wada dhinteen haddii magafa wada qashay hadday meydkooda sixraha wada yaalaan hadday maxay ahaatay dagaalkii qabiiliyad ayna waxba ka dhaafin ciidankeenii waxba aynaan ka dheefin eenagii isku baabaanay haddii xoogeenii ciidankeenii maxay tilbaax Afrika la oran jiray dalka gudihiisa meydkood wada yaallo iyo dheecaankoodii haddii maxay ahaatay ii sheegeen maanta Ethiopia inoo wada taliso haddii maanta ma aragtay aynaba layna kala aqoonin haddaynu Somaliland nahay iyo haddaynu Puntland nahay iyo haddaynu Soomaali weyn ban nahay oo maanta aynu cidbayna kala aqoonin ban iskala saarnay maxaa kala saaraysiin se xagee fayow xagee bid qabta maanta Ethiopia idin wada talisa xooggeena iyo cududeennii annagaa gacanteena ku googoynay annagaan ilmaheeni mustaqbal u samaynin annagaa maxay tahay mustaqbal laa ku soo kornay annagaa ilmaheeni mustaqbal ay la yihiin anaa qax ku soo koray qax ku 30 meelood u qaxay anaa ilmahayga hadda 10 meelood ula qaxay annagaa haddana maxay tahay imanka aan meel ilaahay abuurtaan future ku haysan marka waxaan leeyahay
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين قرت الصوم حلي جيل Soomaalida waxa ku maamaadaa geel iyo rag bahal door kama dhamaado waxa laga yaabaa Soomaali wali in damirkeeda qoyan yahay oo ama ku xita ku soo korto oo ku aqlisto balanbalkii iyo maxay taayeen qaxi iyo intii dhalatay dagaalada intii maxay tahay afooyin ku jireen ama dadkii kuba soo dhaqaaday Soomaalida markii fiicnayd dawladda hay'adda quwadda hay'adda fiicnayd qaranka ahayd ha ahaatee kolay wuxuun baa hadda damirkiisa sii qoyan yihiin wuxuun baa ka sii nool Soomaali dadka qaar Soomaali waxa soo kala Soomaali lama yiraahdo maamada hadda halan ku hadlaysay aad iyo aad baan uga marar dilaacay hadda ka hor maama sidaas oo kale aan uga marar dilaacay anigoo iskuul aan dumar badan oo iskuul dhiganayaan nahay waxaan joogaa anigu wadanka Sweden baan joogaa anagoo iskuulna loo fasaxay oo aan iskuul dhiganayo aan maxay tahay fasax ku jirno aan xiliyada raasiga kale ku jirno waa inaan Soomaaliya telefoon ku hadlaysa ark waqtigaas waxay ahayd 2014 bilowgoodii waxay leedahay inantu marka telefoon bay ku hadlaysay gabadha telefoon bay ku hadlaysay waa wali waa maama aniga iga weyn waxay leedahay maamadan iyo hadda maamadaas markaan arkay isma ba lahaynba maamo Soomaaliyeed oo maanta maxay tahay adduunka ku nool ba hadda yaa goobada maxay tahay Soomaali sida u goobinaysa oo dhahaysa maxay heetay oo qaxday oo qax ku dhashay oo rafaaday oo maxay tilmaheeda la qaxday oo maxay tahay iyada qaxday oo maxay tahay adduunka waxa ka socda Soomaali maanta ku dhac haysataba og ba maanta Soomaali kala isku goobinaysa ama maxay tahay kala goobinaysa adduunka ma waa islahayn ba way jirtaa taas ma waxaan taas ma waarantay mid waxa ka sii ah telefoon bay qaadatay waxa la hadlaysaa anigu waxa kiilanka shanaad baa la hadlaysay mise waxa la hadlaysay Kismaayo meel la hadlaysay ma garanayo kale maamadu labada qabiil ee halka deegaan bay mid ahayd labada qabiil halka deegay ahayd gabadhu markaas waxay leedahay maanta hadaan ciidankii Itoobiya anagoo walba reerkaas absama ah oo ciidankii Itoobiya iyo ciidankii Kenya ba maanta aan ka haysano xoog ka haysano Soomaali waan qabsan karnaa waana ka aarsan karnaa maalintaas aan u muraara dilaacay maamadaas aan uga muraara dilaacay isma maan dhihin ba waxaan markaa iyadu way waarantay baan isin tan markaa arko waxaan ilaan tiimid kale ilaan dadka qaar baa wada wali caynkaas ah oo maamooyin saas baa adduunka wali jooga aniga adeeraday waxay ku dhamaadeen dagaalkii maxay heetayeen rag badan oo reerahayga ahalkayga dad badan waxay ku dhamaadeen dagaalkii 77kii oo in adeeraday waxay ku dhamaadeen kii maxay heetayeen aslam ay maxay heetayeen waxaan faqash ka xoranay wadanka lahaayeen oo maxay heetayeen caruurtayda waxay ku dhamaadeen maxay heetayeen ahalkooda waxay ku dhamaadeen dagaalkii maxay heetay lahaa maxay heetay xamar oo inta in Soomaaliyeed ba meedkiisa meel ba yaala aniga dagaal horta imaba anaka horta Soomaali hadaan nahay maama Soomaali maanta waxay dagaal iyo maxay heetay xoog iyo reer sheegtaba ma ahan hadii maanta dawladda noo dhalatay oo la taageeray oo maxay heetay shacabkii taageeray oo maxay heetay ilaahay maxay heetay dawlad noo dhaliyay ma rabno maanta waxa soo kala wax ku hadla intii maanta aan taageersanayna anigu waxaan dhihi lahaa loo gurguurto oo Soomaali hawada gurguurato oo Soomaali hawada hoyato oo ilaahay ha loo bariyo oo maxay heetay ii sheegan hal yiraahdo maxay heetay madaxa la wada sarxo si aan lugaheena isugu taagno si aan cadawga isaga dhicino sidaan Itoobiya isaga dhicino sidaan maxay heetay aanu meedkeena meel walba daadsan iyo anagoo meel walba ku urnay oo jeelasha ku urnay oo ku qurbaha joogana aan basar kula joogin oo maxay heetay aan meel walba yasniin iyo maxay heetay meel walba aan ceebti adduunka aan mari kar laanahay ilaahay baa idinku dhaariyo ilaahay baa idinku dhaari maanta wixii video ga dhageyso sheegaray afarta qarad oo kala dir rag maanta qabtay maxay heetay baarlamaanka iyo rag maanta qabtay maxay heetay ii sheeganeen iyo madaxweynaha iyo daladu soo dhisto anigu waxaan dhihi lahaa loo gurgurtay reer Soomaaliland oo siday maanta calanka idinku keeneen maalinta hore calanka idinku keeneen maanta iyaga loo geeyo
oo Soomaaliya ha wada gurgurato ma rabna anagu kala daadsana ma rabna anagu ceeb adduunkii dhammaa ceeb baan mar weyno raggasna wayna bahadileen oo ma noolin ma rabin inaan ooyo ma rabin inaan ooyo ma rabin inaan maxay tahay waa kolley waxa iga hooyo waa qalbi waa xanuun kolley igu jira waa kolley waa maaragtay waa cadho igu jirta cadhadaasna ilaahay baa horta wuxuu keenay raalli laga yahay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay waxaan ka rajay ilaahay inuu kala reebo ilaahay waxaan ka rajay inuu sharaftan inoo soo celiyo ilaahay waxaan ka rajaynaa inuu maxay tahay dalo caadila noo dhaliyo ilaahay waxaan ka rajaynaa nimadayada dhiigayaga meel walba ku daadsan halbowlaha na go-an ilaahay inuu noo talo ilaahay inuu qalbigayga barcad isu mariyo ilaaha weyna waaxidka waxaan ka barana Soomaali inuu mideeyo caloosheeda mideeyo oo xooggeeda mideeyo oo caqligeeda mideeyo oo kala bogsato oo ilaahay isu maslixeeyo intii maxay heetay intii ku kala dhimatay iyagu kala dileen waxa ka daran iyagoo wax korkooda danqanayo oo korkoodu dareen leeyahay oo danqanayo oo baaba isku dhufanayaan iyagu isdilayeen waxa ku socota mid aanay ogeyn oo korkoodu danqanayo oo suuxiso Soomaali suuxisa ku wada mudan saa marka darayga tahay korkaaga uu danqanayo walaalkaa wuxuu kugu dhuftay daraybaad waa ama iska celi ama u dulqaado waad og tahay Soomaali cadow meel walba kaga soo duulay oo suuxisa ku wada muday oo mid walba u qoslaya oo waji maxay dhahaya maxay heetay waa adigaan ku taageersanay aniga kula qabanaya adiga maxay heetay adduunka ugu fiican adigu waad quman tahay xaguu ka quman yahay ma qumana Soomaali maanta suuxisada ku wada mudan maxay heetay abeesada abgrudugooda ku maxay tahay halaq ku wada muday iyo sunta ku wada socota ha iska fahanto maxay taasoo ah Ethiopia iyo intii maxay loo soo adeegsado taasoo ah maxay khaliishka taasoo ah carabta oo aan rabin iyaga aan khayraadkeen la soo baxno taasoo aan rabin carabtuna ma rabto in khayraadkeen la soo baxno Soomaaliya horu marta ma rabto khayraadkeeda la soo baxno ma rabto annagay marba nakala shiilashelinaya annaga maxay iyada iyo wixii soo raaca ma rabna anagu daba dhilif ma rabna anagu maxay heetay nin Ethiopia u shaqeeya ma rabna anagu maxay heetay nin u shaqeeya carabo iyadu waa wadankeena aanu markii aanu kala daadanay maxay heetay anagii aanu ilaahayna kala daadiyay aan qaxoontina wax naga qayb qaadan maxay heetay inayna rogto kii tagaba soo tarxiilaysay aan muslimnimo wax noogu qaban ma rabna inaa usii kala dhiliftaan oo maxay heetay kontraad kasoo wada kala qaadataan beenaho aan jirin maxay heetay maxaa hadda beenta isu sheegay hadda maxay tahay Soomaali hadda been ay isu sheegin beenta way soo dhamaatay anagu waxaan rabnaa wadankeena inuu noo dhismo anagu waxaan rabnaa khayraadka carruurteena ka baktay adduunka lama arkin Soomaali mooyaane caalamka ilaahay lama arkin Soomaali mooy meel dad gaajo u baktinayo oo gaajo wada leysay oo maxay heetay maatadoodii carruurtoodii gaajo leynayso raadlaynayo caalamka Soomaali mooya lama arko saa markaad ugu dhufato maxay heetay dadka adduunka ugu xun ugu corruptionka badan leh ee ugu maxay tahay ugu liita Soomaali baa soo baxaysa waa run haddana waxaan nahnaa wadan qani baan leenahay wadanka qaniga lagaba hooyay iyo Soomaaliba gaajo rogtay
oo bahi baa rabta inamadeenna waa kuwa maxay hatayaan adduunka isbeer baarta u wada noqday maxay tay kaliya maxay tay caalamka intaa le maxay tay isbeer baarta u wada noqday oo maxay tay jirkooda la wada iibsanayee muxuu kaga tegay adduunka qaniga kaasi muxuu kaga tegay adal sheegayo gormada iska faaisan anagu maxay tay waddankeena qaniga la sheegaayo waxaa kale oon aad u xanaaqay maalin baa waxaa la yidhi waa lasoo bandhigaa marka iskuullada noola dhigay waxa leedaha qof walba waddankaa ka sheekee waxaan anigu waddankayga wuxuu leeyahay xoolo nool wuxuu leeyahay bad weyn buu leeyahay wuxuu leeyahay waddan oo maxay ta barwaaqo iyo wuxuu leeyahay shidaal iyo gaas iyo wuxuu leeyahay dheeman buu leeyahay wuxuu leeyahay maxay ahayd waxyaaba fara badan waddankeen wuxuu leeyahay naga sheekeeyey ina carabeed baa waxay tiri ma soomaaliya waxay tiri waddankeedu sidaa yaga maxay tiri waxay tiri 20 sano ka hor 30 sano ka hor ba waxay guryaha noo masixi jireen hablaha Soomaalidu waxay tiri anaga guryaha noo masaxaan anaga waxay tiri noo dharka noo dhaqdhaqaan anaga guryahayga waxay hagaajiyaan waa runteeda inantii carabtii markay inantii carbeed waa dhirbaaxay maxaad meesha dagaal baa ka dhacay maxaa u dhirbaaxda la naagta oo dagaalka aad ku geliyay waxaan aniga hadda marka anigu aan baaba'ay maxay waddankaygu rogmaday ee waddankayga intaas sana 30 sana waddankayga dagaal ka socday adigu de muxuu difaaciye gal maxaa hadal ii galaya khayraad aanan ka faa'iideysanaynin oo ilay walaalkay ka baxtiyay oo aabahay ka baxtiyay oo anigu aan ka baxtiyay inankay ka baxtinaay muxuu qabanaya khayraadkaasi haddaan sama laga faa'iideysan karaa tafaraaraq dad ku jira oo kala maxay kala waxa ma ka faa'iideysan karaa waddankooda khayraadkiisa lagama faa'iideysan karo adduunkii baa laga soo nacay dad iska biiri qaata oo qof waliba wuxuu raba gashan karo oo qof waliba ku shuban karo oo maxay qof waliba dantu leey ka fashan karo baynu noqonay aan jalwadba ku socon jalwadba lahayn marka ilaahay baa idinku dhaariyay oo ilaahay baa idinku dhaariyay ragganina haddaynu dumarkana aan u ducayno ragganina haddaynu dumarkana u ducayno ilmaheenana aan mustaqbal u samayno تصبحي بنات وليس haddaynu dumarkana raggeena aan u ducayno oo guryaha aan dib ugu laabano oo albariga aan badino oo raggeena aan u ducayno ilaahay inuu maxay hatay waxaa naga saaro ilaahay inuu xumaanta naga saaro tusbaxaas oo laba kuwee tusbaxaas kaasan habeen walba marka carruurtiga seexato yaa fadhiga la tagaa markuu heerku seexdo ilaahay baan baryaa ilaahay waxaan baryaa ilaahayo waddan aan lahayn baan joogaa ilmihii waddankan maxay tahay Yurub iyo America meel kasta tag ilmihii waddan aan u joogin waddan aan u dhalanin uu og yahay carruurtii waddan aan u dhalin inay joogaan iskuuladii dib bay kala kulmayaan kadeedoo dhan baa dadkii u dhan ilmihii maxay hatay qofkii qof yar lahaa waa laga qaadanayaa oo maxay hatay dadkii waa iska baqayaa kii ilmo yar ilmihiisii ma tarbiyeysan karo kii maxay hatay kuwa weeraan beeyadii baa ka kaxaysanaysa ifritin ilaahay waxaan ka baryaa ilmahaas inay iga baadiyeenin oo muslimka dadka islaamka ilmahooda baadiyeenin oo ilaahay ilmaha noo nabadgeliyo oo kuwii waddankii ilaahay nabadgeliyo oo ilaahay nabadgel nagu soo aruuriyo oo ilaaha weyna waaxidkii bal dawlad cadaada noo dhaliyo oo ilaaha weyna waaxidkii dadka waa la isku gafay oo dad islaam aynu nahay waa isku gafnay oo waa isku gafnay oo waa la isku gafay oo waa isdishay oo Soomaali ismid kasi isu dishay muslimkuna inuu isdilaba maaha sharcigu maxay tahay ilaahay wuxuu yiri oo nabigeena kaleey salaatu wasalaam wuxuu yiri hadii qofka islaamkii uu dil kula soo aado labada qof haday kii kala dil uga jawaabo waaba ehlu naar laba ehlu naar istili weeyaan adigu hadii qofkan walaalka uu muslim yahay haba haduu dagaal kula soo aado haba iska cilin qofkii diintaada kugu faragashay oo diintaada waa kaaga iska cilinaysa laakiin qofka iska abi gaalkaas iska celi laakiin qof islaama
oo dhiiggaaga iyo kugu soo faray maxay tahay qof islaama oo walaalkaaya haddaad adigu waad jeclaysatay inaad dishana ehlu naar baad tahay xataa haddaad iska celisay ehlu naar baad tahay dadkeena intaa way isdilayaan intaa maxay tahay waa un la dadkeena inaga hadda gacanteena ku dhammaynay qaraxa ku dhammaadaan midka fool oo la iska hor imaan ku dhammaadaan waa muslim dhintay yaa dadka ayaa kala cafinaya dadka ma ehlu naar baynu ku dhammaanaa intaan tiro leegnay dad islaam sheeganaynaa dad muslim sheeganaynaa dad waliba waxaana ahla oo intii saddexdii diintu sheegtayba ah saddexdii diintu sheegtay oo daris meel ku wada nool oo isku afa oo saddexdii diintu sheegtay saddexdiiba ah muslimkii ah ahalkii ah dariskii ah inagoo saddexdiiba ah yaanu gacanteeni isku dhammaynay yaana kala cafinay xagee layna ku xisaaminayaa xagee layna geynayaa ma waxa tan gidiga inuu isku wada naar mudano oo intaan tiro leegnay baan iswada dilo gidigan saa ku dhammaano kii naftiisa maxay tahay intuu ilmihii dadkii intay naftoodii meeshii ay joog kar waayeen carar lafoodii la carareen waxaa la odhanayaa badda qofku isagaa u bareero waa isagun baan aakhiro la weydiinaya kaas shahiid buu ku dhintaan ku leeyahay meelu ku noolaadaba ma haysto meelu ku noolaadaba ma haysto mustaqbal badadaan loo samaynin loogu talagelinba oo kii markaa maxay ta xukumayaana iyo afartii wax la cuntaana madaxu intaa madaxu leekaanayo oo calooshii intaa tegayso oo meeshii xukumaya lagu dhammaanayo oo aan maatadiisii ka warqabin oo dadku maxay tahay xilka u qaaday aan ogeyn oo caafimaadkiisii ogeyn oo maxay tahay waxbarashadiisii ogeyn ilmaha caafimaadkooda cid ogeyn ilmaha waxbarashadooda oo cid ogeyn dadaan maxay tahay laga warqabinba oo intii nin walaba intuu xukumo isagun baa ku nool bas iyo intii markaa maxay tahay la kala ridata maxay tahay mana jecla in laga hadlo inta markaa uu hoos joogtay xukumo qof midna ma jecla in laga hadlo dantooda shicibku inuu hadlo afka waa wada cabursiya shicibku qof hadlaya male iyo qof dantiisa maxay ka hadli karaa inna waabay aamusto ilaa saasi wuxuu eegaysaa waaba dadkii bas intaasuu kala jabay war hadla ilaahay ka yaaba war hadla ilaahay ka yaaba war hadla ilaahay ka yaaba waxba idan ma caburinine oo qof oo wadantaada ka hadal nina waxba kuu tiray nina caafimaadkaaga aan meel saarin oo maxay heetay aan waxbarashadaada meel caafimaadkaaga meel saarin waxbarashadaada meel saarin biyo aan ku haysan oo baad kale aan ku haysan oo ogaalba aan ku haysan oo inaad dhimatay aan nool batay aan ka warqabin oo haddana maxay tahay kaa qaadanaya lacag subaxdii markuu waagu baryo adiga lacag kaa soo doonayay oo aan baad iyo biyo midna kuu samaynaynin muxuu kugu xukumaya kaasi maxaa dadka beenta loogu sheegayaa looma sheegi kara been aniga reerkan ka dhashay runtii marka la sheego runtii waa reerka ugu badnaa ugu dhimashada badnaa Somaliland markii ay siyaad bar la dagaalamaysa wax allaala iyo wax diin waxaan ku haysanaana male kuma haysano maxay heetay kuma haysano waxbarasho kuma haysano wax allaala wax dunyaale oo adeeg bulsho ah oo maanta maxay heetay aan ku haysano male anaga waxa noo dana oo walaalkay u dana oo reerka maxay heetay Soomaali u dana calanka shanta gees kaasa anaga noo dana kaasa anagu aanu ku ceeshi karnaa kaasa walaalkay ku ceeshi karaa oo dugsan karaa kaasa ina wiil aftigeeda la dugsan karaa kaasa wiilkan la dugsan karaa been maahan waxba yaa been leedii sheegin inantii ka hadlaysay tiri abgaal baanahay calankan shanta gees le anigu magaalada laga taagay baan yaan dad ka soo jeedaana magaaladii dadkii soo qaadina waa nahay soo waxaad garatay maaha inanta caafimaadka ku heshay ee biyihii ku heshay
adeegii bulshada loo dhamaystiray maxay haytay magaalo madaxdii ku heshay weli ku haysataa annaga dawladda siyaad bari caafimaad kumaana inta badan weliba anigu gobolkan ka soo jeeda caafimaad kuma haysan waxbarasho kuma haysan saas oo saasa kumana haysan maxay haytay ii sheegeen adeega bulshada intuu tiro leeyahay kuma haysan inta badan kuma haysan inta adeeg mar haddana caafimaad ku haysan waxbarasho way ku haysteen dadku waxbarashadu way ku haysteen intii dadka waliba anigu meel burca hawdkeedaan ku dhashay oo reerkaygu degan yahay halkaasan deegaan ku nahay kuma inta adeega bulshada ima gaadhin haddana in sidaa maxay haytay anigu ma jecel calanka in wallahi inaanan jeclayn waxaan ogahay isaga keliya inaan wax kasta ku heli karo inanta abgaal intaas way ku haysatay daryeelka bulshada oo dhan intuu tiro leegyahay oo weliba faakahaysi ah haddana waad ku haysataa ma garatay inaad maxay tahay sidaa tirahdaba maha magaala madaxdii iyo maxay haytay ii sheeg adeegii bulshada oo dhan adoo ku haysta intaas inaad tiraahdo madaxweyne iyo waxa inaad u doodaba maahan xilla wax lagu dhegaba maahan soomaali wax xil loo qaadaba maaha aad baan u xanaaqsanaya xataa warka waa iga qasay waxaan ku hadla ma garanayo qofkuna markuu xanaaqo wuu isku darmadaa waxaan ka xanaaqsanahay waxyaabo fara badan oo qofku markuu anigu waxyaabo fara badan markaan aan Soomaali yiraahdo waxyaabo fara badan baan xasuustaa wax badan baa igu soo dhaca waan iska xanaaqaa marka oo waxaan ka xanaaqaa inkastoo wixii tagay wixii ilaahay keenay oo aan maaragtay wax loo xanaaqaba ahayn laakiin dadku markuu isku gafo adoo isagoo muslim oo isku dambaabo oo isku gafo oo asagoo haddana isku gafaya haddana waxba aan maaragtay waad xanaaqaysaa bilaalmadii baa lagu gafay wada dhalashadii nidii baa lagu gafay qarankii baa lagu gafay wax walbaa lagu gafay fayuujir la-aan wax kastaa lagu gafay muslimnimadii baa lagu gafay ma fiicno marka waxaas adoo maamo Soomaaliyeed inaad maanta dad isku gawaabiso aad tiraahdo kan maxay tiraahday hebelka abgaal iyo hebelka maxan abgaal dhowr iyo 20 sano in yara Cabdullaahi Siif qabtay mooyaane soo hayn xilka intaas muxuu meel u gaarsiin waayay muxuu عيديد buu ahaa markii cali mahdi buu ahaa ninkii qabtay عيديد baa qabtay عبد القاسم baa qabtay عبد الله يوسف baa qabtay شيخ شريف baa qabtay حسن شيخ baa qabtay marka idinkoo adeegii ba idin dhameystira oo idin soo gaaray annaga adeega bulshada mabana wada gaadhoon xataa tuulooyinka yaga dhadhow ee xataa u dhadhow gobolada waaweyn ma gaadhin idinka tuulo walba adeega bulshada idin gaadhay oo biyihii baa walba idin gaadhay oo beerihii baa leedihiin oo wax kasta leedihiin oo magaalo madaxdii baa leedihiin Soomaalidu dhan isugu maleysay inaad maanta madaxweyne u baroorataan ma ahan magaalo madax iyo horta haddii dee si fiican loo hadlaayo oo maxay haytay Soomaaliyeed wax isku ogoshahay in wax qaybsato ogoshahay hadday wax ogoshahay ma garad marka waxa soo kale is no good maanta waxa weeye Soomaali waxba isugu waxba maxay haytay ya Allah iyo nafsi baa lagu jiraa maanta ninkii Soomaaliyeed anaa madaxweyne u noqonayo isagaaba dhib qaba in loo duceeyo oo geesaha la qabto oo maxay haytay dawladda maxay taageero oo maxay haytay si fiican maaragtay loo taageero oo aan la kharqadadaynin oo aan maxay haytay waxba maaragtay wanaag mooyaan xumaanba loo geysan baa fiican intii islaama oo Soomaalinimo iyo wadanimo ku jirto oo islaama oo muslima oo Soomaalinimo ku jirto dawladda ha taageerto anagu marhabno maxay tahay ninkan anagu marhabno cadawgana suuxisada nagu mudaya suuxisada aanan dareemaynin si noo dilay suuxisada dadka nagu mudaya marhabno cirbada suuxisada hala iska saaro
soomaali adigu markaad silaysa waad isdareemaysaa halka waalkaa kugu dhuftay waad og tahay ama aad iska celisid ama aad maxay hetay ama aad iska riixid be laakiin wax suuxisa kugu mudaya oo aan meel laba kugu dhaafaynin oo markuu hadhowta uu ku soo ogaadana surka kaaga xidhaya xarigii kaa inaan ma rabno anagu sidaa ma rabno wixii maxay hetay aan maanta taa rabin oon soomaalinimo ahayna ilaaha weyne waaxidka waxaan ka baryaynaa inuu dabeel caafimaad geliyo oo dabeel caafimaad dadka wadasian cidna ma habaarayo cidna maxay tahay wax ma dhahayo laakiin waa u ducaynayaa soomaali qof walba u ducee weliba maamooyinkow maamo walba intaad gurigaa gashid hawshaada markaad qabsato ilaahow dadkaan isu soo jeedi ilaahayow maxay hayta soomaali midee ilaahow qalbigeeda midee ilaahow quluubteeda midee ilaahow rabbiyow raxmaanow sharka naga fogee ilaahow ilmiheena mustaqbal noogu yeel ilaahow waxaan anagu soo marray ilmiheena nooga badbaadi ilaahow silaca naga saar 40 sano waxaan jiraa maxay haytay dadkii kacaanka markuu qabsaday cabdirashiid cali sharmaarke markii la dilay baan dhashay waxaan ku caqlisan indhaha kusoo kala qaaday iyadoo soomaali rigeedu dhimanayo dagaalkii 77 waan jiray reerahayago dhan baa ku dhintay markii saa looga soo dan jahadii baa bilowday tani intaa waa la dhimanayay guri walba inankii aabihii ku dhintay baa isagiina ku dhintay inankiisina ku dhintay dagaalkaa intaa dagaalun baa lagu jiraa ma rabna anagu dagaal ma rabna anagu soomaali inaanu waxaa ma nihino hadda 3 markan laga dhigo 2 meelood waaba tagtayba soomaali maxaa ka nool maxaaba horta soomaali ka nool somaliland caruuriba uma noola caruurtii waaba ka dhamaadeen magaalo dhashay caruuriba kuma noola ilmihii waaba ka dhamaadeen waa khabri odayaa ku nool waa la wada ogyahay wax beena maahan waa khabri odayaashii u talinayaan marka ay adduunyadii soo rogeen ilmahoodii mustaqbal u sameyn waayey xagee ku noolaanayaan iyaguna cuquuq baa u dhibanay cuquuqda u dhinta dheh ma rabna anagu waxaas ma rabno waxaan rabnaa ilmaheena in loo sameeyo mustaqbal anagu waxaan rabnaa dhulkeena lagu sheegayo hodanka inaan hodankiisa bal caruurteeda wax ka aragto anagu waxba kama arkin aabeen wax kama arkin awoogeen wax kama arkin marka ayaa looga tegayaa waaba gumaadano umaba noolini yaa looga tegaya adduunka hodanka la sheegay ma akhira la soo sheegaya marka ma rabna anagu waxaas ilaahay waxaan ka barnay inuu Soomaali ilaahay mid ka dhigo inuu isu soo jeediyo inuu ilaahay ilmaheena mustaqbal u sameeyo ilmaha walaalka inuu mustaqbal helo inaan maxay hatay aanu midna helo mid aanu ilaahow midnimana si ilaahow rabbiyow midnimana si ilaahow wanaagna si ilaahow sharafna si ilaahow sharafteeda noo soo celi ma rabna anagu waxaas kala daadsanaan ma rabno dulli ma rabno anagu ma rabno anagu waxaan noo danahayn ma doonayno waxaan noo danahayn ma rabno dadka in la lugooya ma fiicno haddii walaalkay la soo lugooyey oo inankiisi la lugooyey ma waxaa raba inankiisina in la lugooyo ma lugooyaa lagu jirayaa ma mustaqbalaan baa lagu jirayaa waxaan kaloo aad uga naxay oo aad iyo aad uga naxay maalmahan shay ka socotay Somaliland oo la yiri dekedeedii waa la iibinayaa waxa la siinaya ciidamo dekedii waaba la iibiyay airportkiina ciidamada lagu wareejinayaa waxa la yiri carabi baa le ma akhrido hadday akhridana maba garato markay garatana ma qaban karto soo waxa garateen ma aha taana laga fariisadaan dhihi lahaa waxa laala wixii TV-gaas uu soo gaadho shay garee anagu dad islaam aan nahay dad muslimiin baan nahay anagu markii maxay haytay anagoo sidii marka dagaalka lagu soo ma rabnin in dad islaam oo kala dagaal looga yimaado in maxay tahay wadan islaamada kale laga soo burburiyo
yabani waa tii soomaali ku qaxday sacuudiga cid nooga qaxday ma garanaysiin cid ay noo nabadgeliyeen ma garanaysiin imaaraadku meel ay adigu haba khaliishka haba kala gurinba maxay tahay haba kala gurinba waddankana wixii muxuu ahaa maba garanaye maxay tahay carabta haba kala gurinba maxay tahay yaman iyadu waa wax waa walaalaheen anigu ma sida marka yaman dad yaman baan ka soo jeedan dabeen waa dad walaalaheena weeyaan waa dadaan dhiig isku leenahay waa dadaan wada dhalanay waa dadaan muslim nahay waa dadaan deris nahay yaan looga duulin yaban maxay tahay yaan looga duulin Soomaaliya yaban yaa loo soo dhaweynin wax yaman ku duulay ilaahay idin iyo maxay tahay ilaahay dhulka in la goynay dagaal ma rabno yaban in halkaas maxay tahay yaban colaadin yaban colaadeedan yaa la soo dhaweysanin ma rabno anaga yaban halka in looga duulo ilaaha weyna waaxidka dadka ha garansiiyo dadka ilaahay xisbada u yeelo ilaahay dadka caqliga u yeelo caqligu ha shaqeeyo waxa soo ka baarlamaankeeda maanta istiliyaan arkay waaba naxabad maxay isku diriyaan baan maalmahana sheekadu inay socotay waan arkay marka maxaa waxaas keenay anag yaa horta aqoonsan dadka dhahaya waxaan bixinaynaa saldhig Mediterranean bixinaynaa yaa aqoonsan yaa u raacayaan maxaa la yiri waxa la lugta jeerin haday dhaafto way jabtaa yaa ka fakir laga fikiro taas yaan lagu fududaanin iyadan taasaan uga baxayaa waan ducaynayaa ilaahay ducada ha naga aqbalo ilaahay weyna waaxidka waxaan ka baryaa inuu Soomaali mideeyo ilaahay waxaan ka baryaa muslimka inuu mideeyo ilaahay muslimka xoogiisa iyo quwadiisa tuso iyo maxay heetay karaamadiisa ilaahay waxaan ka baryaa inuu Soomaali karaamadeeda iyo caqligeeda uu tuso iyo quwadeeda tuso ilaahay waxaan ka baryaa inuu waddankayga noo mideeyo ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay waddankayga gaajada iyo rafaadka ka saaro ilaahay waxaan ka baryaa waddankeena inuu abaarta ka saaro hadda abaar baa haysata waaba dadkii meel uu ku dhimanaya xooli waa ka dhamaadeen ilaahay weyna waaxidka waxaan ka baryaa dadka waddankeena inuu raxmaad khayr qaba u shubo abaarta ilaahay inuu naga saaro colaada iyo maxay tahay naxliga iyo qurunkana ilaahay inuu naga saaro ilaahay waxaan ka baryaa inuu maxay tahay sukeena cafiyo ilaahay waxaan ka baryaa wixii intii naga dhimatay ilaahay inuu naxariisto ilaahay waxaan ka baryaa ilaahay inuu nacafiyo ilaahay waxaan ka baryaa inuu ilaahay waddankeena noo mideeyo ilaahay waxaan ka baryaa waddankeena waddan hoodana inuu nooga dhigo ilaahay waxaan ka baryaa ilmaheena meel aan ku tarbiyeysano oo maxay heetay aan niyada ugu dhisno niyadii baa anaga niyadii naga dhimatay ilmahayga bay ka dhimatay ilaahay meel aan niyada ku dhisano oo muslimnimada yadii baa xataa wax kala galeen ifritin dad maaragtay wax ka sii yihiin maaha intii dadka muslimkii ka ducaysan jiray oo dhan baa nagu dhacday ilaahay weyna waaxidka waxaan ka baryaa ilaahay inuu naga saaro waxaas ilaahay weyna waaxidka waxaan ka baryaa inuu dawlad fiican nooga dhigo cagaheeda isku taagta oo maxay heetay maxay tahay iswada raac Soomaali wada midaysta oo maxay tahay waddankeena uu balaayada iyo waxa ku soo duulay ilaahay inuu tiika maarteen ilaahay inuu nooga qabto horta isaga quwadda ilaahay weyna waaxidka inuu nooga qabto dawladdii maxay heetay u hadli lahayd waddankeena ilaahay weyna waaxidka inuu soo saaro Soomaalina waxaan leeyahay Soomaaliyay meeshii Soomaali laga gaaray waa ogeydeen Soomaaliya meeshii Soomaali laga gaaray waa ogeydeen Soomaaliya inta tiri la egtihiin anigu waxaan dhihi lahaa inku si kasta u qaata laakiin anigu waxaan dhihi lahaa Soomaali maanta inay u gurgurtaan heesh xisxaaq iyaga calanka idin keenay maaldaxaas waxaan aad uga xanaaqay yiri calanka diiq baa lagu keenay diiq mu ahayn calanku wuxuu ahaa calankii diiq mu ahayn diiq wax qof la siiyaa la yiraahdo oo loo keeno diiq mu ahayn calanku wuxuu ahaa calan la soo jibooday oo jacayl idinku keenay oo inaga dhaxeeya oo Soomaali ka wada dhaxeeya oo maxay heetay jacayl iyo walaalnimo la idinku keenay maxay tahay Muqdisho lagu geeyay jacaylkii iyo walaalnimadii la idinku keenay
shacabkii maalinta xitaa madaxdooda dhegaysan waayey waa in maanta iyaga jacayl iyo walaalnimo iyo sidii idinku farxaddii idinku keeno in loogu celiyo oo loo gurguurto oo la daaweeyo shacabka shacabka imanka soomaali waa wada shacab dowladda shacabkan waxay dadkan dowladda wax yeeshay ma garatay dowladda qabiil baa huwanaato laakiin maxay haytay dowladnimaa lagu yeesho xooggii dalka soomaaliya baa lagu gumaaday waxay kaga bugsan karaan siday farxaddii ku keeneen in loogu celiyo maanta oo loo gurguurto oo loo garaabo loogama garaabin looma gurguuran tiibay wada lagu qufilay oo madaxdoodina ku qufishay oo kusii qufilin kusii fogeeyeen wax fiicanna maaha marka waxaad leeyahay anigu aad iyo aad baan ku adkeynaya arrintaas soomaaliya wixii haddiiba wax dee maaragtay shacabku weliba soomaali shacabkeedaan la hadlayaa iyo madaxdaba shacabku anigu kolayba ma arkin intaan shacabka hargeysa waan arkay oo kaburco waan arkay oo waan arkay dadka waa oo meel kasta qof waliba wuu jecelyahay soomaalinimo waa jecelyahay ha jeclaado laakiin wixii la gaadhsiiyey cid wa garaawdaba lama arkin loogama garaabo in la cadaadiyo maahaane xataa wax si fiican looga garaabay ma jirto raggii duqeeya maxay tahay jaramadii ciidamo watay raggii saraakiishaha baa laba tallaaba u jira ninay wax yeeleenna ma jiro labadii reere maxay hatay dariska la ahaaye maxay hatay ugu darnaana midna farsaa looguma taagin mid walba maalintii xamar qabti markii xamar qabti ka dhacday waan joogay dowladda sidaa bardhacaysay xamar baan joogay raggii maxay hatay la soo badbaaday ragga maxay tahay soo qaadeen ee baabuurtii kolonyada lagu soo qaaday ma yarayn ma garatay hawiyan waxa ku war hawiyow maalintaas waan joogay war hawiyow maalinta soomaali kale war raggan waa soomaali kale maxay war wax isku hawiyow wax isku lahad wallahi billahi waa joogay maalintaas war raggan waa soomaali anaga dadkii markii dilay daarood bay ahaayeen war hawiyow dadkani waa soomaali wax isku lahad oo wax kala reeb yaa raggeenu lahaayeen dad ka fiican oo ka calool fiican soomaali kuma jiraan dadkii wixii ogaad loo geystaan aarsan ee ninna ka aarsan shacabkooduna waa wada sidaa madaxooda iyo shacabkooda waa isla mid marka dadka cuqooda la geliyey oo soomaali gelisay mar haddaynaan kala maarmin mar haddaan idinku aan keligeed wax noqon karin anaan keligood wax noqon karin mar haddaan waddankii kala maarmin mar haddaan khayr maxay hatay aan soomaali horeba u socon iyadoo midnimo inay ku dhaqaaqno wayna faraaq ku kala waxaysan karin hal sidii wax fiican lagu gaari lahaaba ha lagu gaadho sidii wax fiican lagu qabsan lahaaba ha lagu qabsado iyagana sidaas waxay dadka haddii maanta loo gurgurto oo farxaddii ku keenay calanka loogu celiyo oo madaxdu tagto oo shacabku tagaan oo maxay tahay oo loo gurgurto u malayn maayo inay diidi lahaayeen marka hadalka waan soo gabagabeynayaa waa iska xanaaqsanoo xataa anigu weligay dadka life ka hadla ma ahayn dadka maxay haytay ii sheegeen ka hadla life weligay ma soo gelin marka iga raalli ahaada waana xanaaqsanahay qofkuna markuu xanaaqsan yahay ma hadalkiisa ma kaantaroolla aad iyo aad baan u xanaaqsanahay layga raalli ahaado soomaali oo dhan baan salaamayaa intii garanaysaan salaamayaa muslim oo dhan baan salaamayaa gaar ahaan soomaali oo dhan baan salaamaya intii magacayga muuqayga taqaan baan salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu